kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo tixgelinta inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan Ramadaan Kariim halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa channel weynii siriicaad ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin sida aad ula socotaan ama channelka ugu xirantihiin waan idinkaga mahad celinayaa sharaf ku noolaada meel walba oo aad ku sugan tihiin haddii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay la kulankaagii ugu horeeyayna subscribe saar kambalelka furo videogana like gareeyo si share gareeyo asxaab badan gaarsiiya si aynu u ahaano asxaab mar waliba saaxiib ku ah runta samaha iyo wax walba ugu dambeeyay markaasi ama updateisa waxyaabaha ugu yaabka badanna waxaan jeclahay in aan si dhow idinku tilmaamo wixii run ah iyo wixii been ah arrinka maalmahan social media shakiga badan ka abuuray ay dad badani ay la amakaageen ama ay la fajaceen ayaan caawa dhoon orahood ka oran doonaa hadduu ilaahayna karansiyo waxyaabaha ugu yaabka badan markaasi muuqaalada runtii ka muuqdana waan idinla wadaagi doonaa ninkii qamar suugaani ahaa waxaynu aragnay maalmahani oo xitaa aanan ka soo hadlin oo aan sugayo xaqiiqdeedu waxa ay tahay in aan ogaado ayaa waxa ay ahayd in ay kala tageen xaajiyadiisa markaa ama jaceelkiisa noloshiisa gabadhii markaasi ay adduunka oo dhan iska madeen Ryan Bajaj oo dad badani ay shaki ka gashay in ay arrinkani run yahay iyo in uu been yahay haddaba way soo macsalaameeyeen oo dalka waa uu ka soo tagayaa magaalada uu ku sugnaa ee Nairobi waa uu ka soo huleelayay laakiin waxaan doonayaa sida ay u sagootisay maxaa iiga dhaxbaxay maxaase markaasi aan rabaa inaan ka iraahdo mid iyo laba ayaan ka dhihi doonaa iyo waxa ay la tahay balbarto marka ugu horeysa muuqaalka daawasho wacan See you again and see you another time inshallah. Inshallah ilahi kusam inshallah. sidaad muuqaalka ku soo aragtayba waxa ay macsalaameysay ama ay runtii bye ay tiri macnaheedu ninkii odaga ahaa oo ay tiri Allah ku samageeyo laakiin dad badan videogan markay arkeen shakigii markaa hayo uu la wajibaarmay oo waxa uu markaasi noqday mid aan run ahaantii aanan caadi ahayn reer commentina markiiba waxa ay kaga falceliyeen in arrinkani uu yahay kii markii hore dhacay oo kale runtii waxa ay yiraahdeen hadda ka horba markii ugu horeysay oo sameeyay ma ahayn mar kale ayaa jirtay oo runtii oo isaga inoo sheegay xitaa in la sixray qof markaasi uu ku tilmaamay may jirin oo gaar ah sida xaajiyadiisa oo kale dad badanise waxa ay yiraahdeen maalinta waxa uu ka hadlayaa ama uu runta ka sheegayaa in ay xaajiyadiisa sixirtay ugu dambeyntiina waa uu ka soo hadlay waxaynu aragnay marka iyagoo runtii marka meel wada joogo laakiin arrimaha la yaab kale ayaa waxa ay tahay maanta waxa ay shakiga uga abuureen oo ay shalay uga shakin waayeen sidaynu ogeen dagaalkii shalay marka uu dhacay oo ay labadooda kala safteen dad badan ayaa labada dhinac la kala saftay dadka qaar waxa ay markaasi eedeynayeen Ryan Bajaj halka kuwa kalena ay eedeynayeen qamar suugaani hadalla kulkulul oo saameyntooda wato ayaa hawada la isku raaciyay waxyaabo badan oo markaasi aanan munaasib ahayn social media waa ay qabsadeen ugu dambeyntiisa waxaynu dib u aragnay iyagoo meel ku wada nool oo markaasi iyaga noloshoodii caadiga ahayd sii wato runtii waxa ay in badan ay ka hadashay iyada in ay nin ay kala tagaan aysan wiligeed waxba u noqonin oo markii ay ninka kala tagaanba ay u furanto albaab markaasi oo aanan caadiba ahayn oo dadka ay malaysan kareenin inuu u furmo dadka inta badan waxa ay markaa ku dhaliileen video ay ka hadlaysaa arkayay waxa ay ku dhaliileen in ay dhiiri gelinayso in dumarka ay raga iska furaan hadii aysan markaasi niyad badan u sii hayn meesha ay xalka galeed ay leeyihiin waxa ay maanta shidaysaa ama ay ololinaysaa dab aanan qurux badnayn halka uu ku dambeeyo mucjisaadka ugu waaweynsa waxa ay kaga duwan yihiin hadalkaasi markii aan arkay social media bajaj badan oo magaceeda lagu sameystay Ryan Bajaj lagu sameystay oo runtii lagu sheegayo inuu qamar mashaqaysta uu yahay darteedna ay uga tagtay noloshiisana ay uga baxday taasi markii aan dhahayno waxaan ku dhihi karnaa oo kaliya hal waji ama hal way ayaan ku dhihi karnaa waygaasna waxa uu yahay markii qamar aan aragno isagoo markaasi iyada ay xumaan ku kala tagayaan waxyaabaha hadda dhacay ee dadka inta badan shakiga galiyay waxa ay ahaayeenba in qamar loo sameeyay xaflad furitaan biligay iyo Allahay abid inta aan adduunkan dushiisa saarnaa maan arag noocani oo kale
yacni xaflad la leeyahay xafladii furiinka waan arki jiray oo lamaanayaasha qaar markay ay kala tagaan mid walba gooni oo u dhigto yacni waa arki jirnay laakiin weli maynan arag oo way nagu cusbayd iyadoo raashin afka la isku gelinayo haddana in la kala tagay waana arrimaha ugu waaweyn ee dadka markaasi sida xogta hoose falanqeeyo ay sheegayaan in ay waxaan gebi ahaanba yihiin arrin branki ah oo aan sal iyo raad midna aanan lahayn khamar waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda dadka inta ugu dhadhow ay sheegayaan waxa yihiin in uu baxayo oo show lagu qaban doono magaalada Hargeysa oo ka qayb galayo markuu ka soo dhamaadana dib waxaan mar labaad u arki doonaa isaga iyo Rayaan oo isku soo laabteen runtiina waxa ay tahay si kasto aad u hadashaan iyo wax kasto ay dadka sheegaan hadii ay yiraahdaan waa isku soo laabanay maxay tahay wajiga kale oo furmi karo ama su'aal laga weydiin karo shar waa kala tagnay ay dhahayaan maanta waa isku soo laabanay maxaa culeys oo jiro maxaa sameynay dad miyaa dilnay dad miyaa dhacnay dad miyaa wax ku sameynay shalay anaga isku garan weyno waa kala tagnay maanta waxaan garanay in maslaxadeena ku jirto wada joogeena sida darteedna waan isku soo laabanay hadii yiraahdaan cidna waxa uma weydiin karayso su'aal noo furan ama aan weydiin doonana gabi ahaanba ma jirto marka arrinkani oo dhan isku soo wada duub waxa uu salka ku hayaa in aysan furiinkani waxba uusan ka jirin markii ay aragnay ama aan si fiican u qoto dheer u baarnay xitaa habka ay u dhaqmayaan oo macsalaameyntii ugu dambeysay uu kaga soo baxay Rayaan Bajaaj ayna tan hadda soo daawanay ay tahay dadka shakigooda waxa uu u egyahay mid run ah oo aanan waxba ka jirin furiinka horta ma rajeynayno inuu furiinkaas wax ka jiro waayo waa family isku qanacsan hadii iyaga isku qanacsan yihiin anagana waanu ku qanacsanahay waxaana mar walba aad ogaataan anaga wanaagan oo dan ah ee xumaanta dan inooma ahan waxa ka xumaan lahayd iyagoo iscaynayo isjijiidayo ishaysto isdacaayadeenayo iyo waxyaabaha qaar in la kulanno ama aan aragno maalintaas ay nooga sii fulxumo badnaan lahayd laakiin maanta by the way wax walba ay yihiin waanu ku qanacsanahay waanu ku faraxsanahay waxaana leenahay arrinkaasi baranki Allah ka dhigo Rayaan marka u soo laabto alla yara kaftamo Rayaan waxay tiri anigu doobnimada amaba furiinka markii aan noqdo iskaabulo nolosheedu waa raaxaysay tiri waa markii iigu badan oo aan helicopterna raaco magaaladana aan ka bixitaankeyga ay bato waxay arrinkaasi turjumaad weyn u tahay ama ay ka turjumaysaa inta ay rag la nooshahay ama ay xaasleyda ka mid tahay in aysan safarkeeda badnayn ixtiraam ay u hayso ragga ay markaasi iyada qabo dartood marka arrinkaasi waxa iskugu soo biyo iyada waa waqtiga ay ugu socoshada badan tahay waa waqtiga ay madax banaan tahay ama aysan ahayn marwuxaas nin qabo maadaama ay markaasi u eg tahay in ay xiliyadaasi iyada ay markaa meel fadhido waxaan horta mar walba ku leeyahay horumar gaar meesha aad taagsan tahayna meel ka sareyso inaad gaartid ayaan rajeynayaa laakiin mar walba waxaad ogaataa noloshaada private ka ah ma qurux badno in aad public markaasi muran dhalin doono aad keentaan wax walba isku tiin idinka isku ah waxaana mar walba rajeynaya inaad ahaatiin kuwa guuleysta oo idinka iyo inta idin la mid ah ee markaasi gurileyda ah dhamaantiin guuleysta ayaan leenahay reer Sariicaad idinka muuqaalku waxa idinkaga soo baxo commentiga noogu reeba videoga la gareysana share gareemid xiganta ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagay nabaadiino